بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan halkan soo dhaweynaynaa maanta Sheekh Mustafa oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliya. Sheekh soo dhawow baan ku leenahay halkan dadka ku soo dhaweynaya waa culimadii iyo xildhibaano iyo wasiiro hore oo meesha jooga iyo dad shacab intaba ah. Maalintkaaga aad baan ugu faraxsanahay inaan ku faraxsanahayna waxa cadeynaysa yani sida lagu soo dhaweeyay iyo dadka ku yimi ka qaata door aad u weyn dhismaha ummadda sida loo dhismi lahaa xagga aqoonta iyo xagga akhlaaqda iyo waxyaabaha soo dhan iyo jiritaankeeda intaba ah. runtiina wuxuu ka mid yahay culimada dadka Soomaalida ee aadka ugu jecel yihiin. waxyaabaha waxa ku yahay waxa ka mid ah culimada kala duwan yahay. Sheekh Mustafa runtii waa nin aad uga warhaya caalamka marar badan ka sheekeeya. marka waxaan oran karnaa waa aqoonyahan muslim ah oo Soomaali ah oo diinta iyo isku darsaday cilmiga kalimaadiga ah. waxyaabahaas ayuu kala duwan yahay culimada qaarkeed. aad baan ku soo dhaweynaynaa Sheekh Mustafa waana ku faraxsanahay imaatinkaaga. inta aad joogtidna waxaan rajaynaynaa haddii Alla idmo in ay dadku wax badan ka faa'iido doonaan gaar ahaan ardada jaamacadaha Puntland oo ay ugu horeyso saddex jaamacadood aad ka jeedin doonto haddii Alla idmo lecture aadna ay ku xiiseynayaan in haddii Alla idmo marka soo dhawow waan ku leenahay gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa. dawladda iyo shacabku intaba waa ku soo dhaweynayaan in aad baan ugu faraxsanahay maantinkaaga waana lagu sugayay waddankaagi weeye gurigaagi weeye marti kuma ahid soo dhawow culimo badan oo maanta kale soo haday yimaadaan aan loo soo dhaweeyeen baa jirta laakiin adigu miisaan dheer tahay oo la isleeyahay wax badan buu dheer yahay sheekhu ayaa arintaas ka liftay. aad baan ugu faraxsanahay soo dhawow kala wixii damana haddii Alla idmo waa gadaal baynu iska wareysan doonaa haddii Alla idmo. marka intaas aan oran lahaa anu soo dhawow sheekh insha Allah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد ugu horeyn dawladda iyo maamulka iyo shacabka iyo dadweynaha iyo culimada aad baan ugu mahadnaqayaa. magaalada tani waxaan rajaynayaa waa magaalada sheekhaygii kullayba sheekhay ugu raad badan leh aqoon الله ونحرسته الشيخ عبد القادر أيوة مقالديسي أول وحنا نقول نشري دمر شيخي وشوقة تجي ما يوحك آخر ما ي وضعك الجوديس أنا إن بدل ما صعنا أنا الصومالي بدأ كده شيء بان سلام بلدي قال لي غير بكره يقوم بان وتكتجي شري يعني أنت مبدأ هيد وضعك نحدي سمان صعنين waa markii koowaad aan wadanka isku dayeen aan dhex socdaan rajaynaya. marka aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin culimada iyo maamulka iyo dadweynaha aad baan ugu wada mahadnaqayaa. insha Allah taala wax badan masjideeda dadku aad baratid baan leeyahay waa isbaran doonaa insha Allah taala. assalaamu calaykum wa rahmatullah.